السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قاليga aan jeclahay soo dhawaada meel kasto adduunka aad ka joogtiin waxaa idin leeyahay farxad ku waara soo dhawaada marka koowaad iyo mar labaadba asxaabteyda qaaliga ah marka koowaad ilaah ayaa mahad iska leh uu mahad celinaynaa marka labaadna idinka ayaa mahad iska leh oo i daawado marka asxaabteyda qaaliga ah waxaa idin ka codsanayaa فيديوغا إنا لايك إيسارتان إيشار غريسان أصحابتينا كلا أسي شار غريسان إن شاء الله أصحابي هذا سنتين مرول بوحا إذن لا يهي ومهاد سنتين سيدا أركيسان بأيانتان وحا إذن كلا قيب قادنايا عط أيا إذن كلا قيب قادنايا إن شاء الله وارجينايا مركو وقتك إيسامحو وإله قدرو وح والبو وقدرت إلهي إن شاء الله وحان إلهي قدرين مدعايو marka insha Allah marka ii suurta gasho in aan maxaa la dhahaye idala soo hor fadhiisto baaquligeyga iyo qaadadii insha Allah iyo alaabtii aan casharkeena ku qaadanaynay oo wajigeena aan ku quruxsanaynay si dabiici anagoo isku cadeynayno oo aan maqaarka iska qaadeynin insha Allah waan rajeynayaa haddii Ilaahay qadaro laakiin hadda waqtiga ayaa ii saamaxaynin insha Allah marka saas darteed ayaan waxaan jeclaystay inaan maxaa la dhahaye aan joojinin barnaamijkeeni aan kadibna cod uga qayb qaato idinkana ka faa'iideysatiin haddii Ilaahay idmo marka insha Allah sida arkaysaan hadda sawirka meesha noo saaran waa kareem wajiga ah oo wajiga ku qurxinayo ku cadeynayo ku dhalaalinayo kaala iska arag si dabiici ah ayaa isku cadeynaysaa adigoo gurigaaga joogo wajigaagana oo qurux liisho ah kaala iska arag ayuu ku noqonayaa marka insha Allah hala soo dhawaado yaan la ismartiyeenin mininkan mininkiini waaye ayay idin leedahay qurux dumar marka insha Allah wixii su'aalane waa isoo weydiin kartiin haddii aad leedahay Snapchat insha Allah videogan video ka horeeyay ayuu saaran yahay Snapchat-kayga marka insha Allah halkaas ayaa igala soo xiriiri kartaa halkaas ayaan kaaga soo jawaabayaa halkan waa ogtiin soomahan commentiga uu iska yar yahay wixii macquul oo halkan laga soo weydiina insha Allah waa rajeynayaa inaan kasoo jawaabo haddii Ilaahay idmo insha Allah marka asxaabteyda qaaliga ah kareemkeena maanta wuxuu ka kooban yahay beetroot ama beetroot sida u taqaanid ama waa beetroot ayaad u taqaanaa ama beetroot labadaba waa la dhahaa marka ayaan rabnaa maanta inaan kareemka subsano oo wajigeena uu noo noqdo waji cad oo qurux badan oo galoobin oo kaala iska arag ah marka waxaad soo qaadanaysaa hal xabo oo beetroot ah ama beetroot haddii aad badan tahay haddii aad macnaha dad badan tihiin haddii maxaa la dhahaye kaligaa aad tahay haddii aad rabto inaad meel dhigato qiyaasta adi ayay kugu xiran tahay haddii aad jab ayaa isticmaali kartaa haddii aad jab kasii jab ayaa isticmaali kartaa marka qiyaasta qof walbo asa ayuu ku xiran yahay qofka asaga ayuu ku xiran yahay intuu isticmaalayo marka beetrootka ayaa waxaa suubinaysaa maqaarka ayaad ka fiiqaysaa ama qolofka uu leeyahay ayaad kasoo fiiqaysaa marka hore si fiican ayaa u dhaqay waa nadiifine aada u nadiifine sababtoo waxaan wejigaaga ama maqaarkaaga marinaysaa looma baahno inuu wejigaaga oo jeermis ama cuncun uu kaa yeesho si fiican marka usoo dhaqdo oo aad nadiifiso kadib maqaarka kore ayaa ka qaadaysaa kadib intaa rabtid ama halka xabo wada isticmaalo meel dhigo oo finjeerka qaybta hoose gasho haddaadan finjeer qabinne maxaa la dhahaye qayb yaraa subsanaysaa kadib beetrootkii markaad maxaa la dhahaye soo fiiqatid oo aad soo jajaratid intii aad ka rabtid aad soo jaratid kadib waxaad subinaysaa wax yar oo bariis oo hal qaada camal ayaa biyo kusoo karinay marka biyaha aad ku soo karisid oo bariiska ala arag oo bisil uu ku noqdo oo aan biyo badan lahayn kadib beetrootkii iyo bariiskii ayaa isku shiidaysaa waa isku soo shiiday marka isku soo shiidid makiinada midda yariista ah ayaad ku shiidaysaa oo yarta ah laba makiinadu waa laba nooc midda weyn oo cabitaanka lama rabo midda yarta oo waxyaabaha qallalan lagu shiido ayaad ku shiidanaysaa wax yar oo biyo roos ayaad ku daraysaa ama biyo nadiif ah haddii aadan haysanin biyaha rooska waxaad ku daraysaa biyo yaroo nadiif ah hal qaada camale kadib markaa isku soo shiidid waxay soo baxaysaa iyadoo adag kadib
waxaa soo qaadanaysaa shaandho, waad miiraysaa, shaandhada ayaad ku miiraysaa. Markaad ku soo miirto oo maxaa la dhahaye qashinka uu kaa soo haro, inta yariista uu ku soo baxdo oo nadiifka ayaa waxaa ku soo daraysaa hal qaado oo maxaa la dhahaa aloe vera gel ayaad ku soo daraysaa. Kadib waxaa ku daraysaa fitamiinka haysato, ama fitamiin E ha ku ahaado ama fitamiin C ha ku ahaado, labadaba wajiga aad ayay ugu wanaagsan yihiin. Ayaad ku soo darsanaysaa mid kamid ah ayaa ku darsanaysaa. Kadib waa isku walaaqaysaa, weelkaa haysato ayaad ku soo shubanaysaa. Markaa ku soo shubato sidaas ayuu kareemkeenii uu ku dhan yahay. Waa beetroodkii iyo maxaa la dhahaa bariiskii iyo maxaa la biyo yar ah ku dartay, ama biyo rooska aad u wanaagsan haddaa haysato oo ku darsatay, iyo aloe vera gel. Intaas wejigaaga wuxuu u tarayaa, wejigaaga wuxuu ka dhigayaa weji qurux badan. Maalintii hal mar ilaa 2 mar waa marsan kartaa. Subaxii intaa marsato haddaa jaanis hayso, galabtiina waa marsan kartaa. Wejigaaga weji aad u qurux badan ayuu noqonayaa. Marba marka kasii dambeyso oo wejigaaga aad marisay, wejigaaga wuu kasii qurux badnaanayaa. Haddii aad waqti haynin oo aad tahay hooyo shaqayso, ama gabar shaqayso oon guri joogin, ama wax baranayso, waxaa loo baahan yahay inaad maalintii hal mar marsato, because waqti kale hadaad u heli karin, hal mar xataa okay ay ku tahay. Alaabtan waxa waaye wax walbo, ama alaabtan ha ahaada ama kareem walba ha ahaado, resultigiisu maxaa la ogaan karaa, goormee la ogaan karaa? Markaad 1 week wado ama sitimaan aa wado, hadba sidaa u taqaanin af Soomaaliga, ayaad resultigiisa quruxda badan aad ogaanaysaa. Laakiin marka ugu horeysa markaa marsato xataa oo aad iska dhaqdo oo 10 daqiiqo wejigaaga markuu marsanaado, ama rubi saac, ama nus saac ka yar, waa rubi saac wejigaaga uu marsanaado, adi intaa doontaba ha kuu marsanaadee, waxaad arkaysaa markaad wejigaaga ka dhaqdo wejigaaga inuu isbedel qurux badan uu soo biyey ayaad arkaysaa. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa kareemka inaad ka faa'iidaysatiin. wejigaaga weji qurux badan ayuu kaaga dhigaa. Kaliya wuxuu kaaga baahan yahay inaad beetroot aad soo gadato. Haddaa haysatona waa okay, haddii kalena suuqa kugu dhow ayuu yaalaa, soo gado. Bariis guriguu yaalaa, aloe vera inaa maxaa la dhahaye dukaanka kugu dhowaad ka helaysaa hadduu gurigaaga ku aanleen. Intaasaa isku darsanaysaa, kaliya fitamiina ku darsanaysaa. Wejigaaga waxaan ku dhahay adaa jeclaanayo dadka kale intaan la gaarin. Marka aada u mahadsantihiin halkan ila soo gaartay oo aad ka heshay videoga, like ii saar iyona share garee, asxaabtaada kale usii share garee. Waa rajeynayaa haddii waqtiga ii saamaxo insha Allah uu alla qadaro anigoo suubinayo inaan idin soo geliyo. Kulli af Soomaaliyan ku hadlaa, idinkan af Soomaaliya ku hadlaysiin, macnaha ku hadashiin oo waad dhegeysanaysiin saa u hadlaayay. Marka aada u mahadsantihiin, aad u mahadsantihiin. Kama daali doon inaa idin dhaho waa mahadsantihiin asxaabteyda aan jeclahay. Soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad waan soo dhaweynayaa asxaabay. Marka maanta kareemkeenii halkaas ayuu noogu egyahay. Haddii aad finjeer haysato, finjeer ayaa gashanaysaa. Wax fiicana intaad subsato oo maxaa la dhahaye weel yaroo isku daboola aad ku shubato, ayaad finjeerka qaybta hoos gashanaysaa. Maalin walba ayaa marsanaysaa. Wejigaagana ma u baahnaan doona kareem kale inaa mariso. Weji qurux badan oo cad oo kaala iska arag oo midab leh oo yaa ku siinayaa. Beetrootka aad ayuu wejigu u wanaagsan yahay. Wejigana wuu caddeeyaa, bariiskana wejigu wuu caddeeyaa, aloe verana wejigu way caddeysaa. Marka asxaabteyda qaaliga ah, dawaakaasaa aada u mahadsantihiin. waa idinkugu soo celinaya video noo share gareeya, like-tan noo saara, like-tan hanaga iloobina. Marka asxaabteyda qaaliga ah, aada u mahadsantihiin. waa rajeynayaa videoya inaa idin soo geliyo haddii ilaahay idmo insha Allah. soo dhawaada yaa idin leeyahay mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad ku dar. soo dhawaada yaa la ismartiyanin. Marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay, waa idinka sii tagayaa. waa anigoo qurux dumar official tuwa. waxaan idinkaga sii tagayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isku soo noqon dambe oo xiisa